shan ruux ayaa ku dhaawacantay laba kalena oo ay ku dhinteen qarax gaari oo maanta ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimadda Soomaaliya gaar ahaan goob kaalin shidaal oo kaabiga ku haysa wasaaradda batroolka xukuumadda federaalka Soomaaliya. dadka ay waxyeeladu soo gaartay ayaa waxaa loo daadguriyay goobaha caafimaad ee ku yaala magaalada muqdisho. goobta uu qaraxa ka dhacay ayaa waxaa soo gaaray saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo waliba gudoomiye ku-xigeenka siyaasadda iyo amniga gobolka Banaadir oo halkaasi kula hadlay warbaahinta. maxamed cabdullaahi tuulax ayaa waxa uu sheegay in gaarigan uu ku sii jeeday goobo kale balse uu ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ku guuleysteen inay fashiliyaan qaraxani. bismillaahir rahmaanir rahiim. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. waxaa baarakoy 10kii barqanimo halkan aan joogno ka dhacay qaraxaas oo sida la socotaan laamaha amnigu maanta iyo maalmihii la soo dhaafay waxay wadeen feejignaan iyo baaritaano dheeri ah. gaarigan sida ka muuqata wuxuu ahaa gaari maaragtay goobo kale u socday, laakiin xarunta hadda halkan petrol stationka waxay ahayd goob lagu qariyay ama maaragtay looga gambanayay laamaha amniga. qasaaruhu ma badna, waxaa ku dhaawacmay ku dhawaad 5 qof oo dadkii ka ag dhawaa goobta petrol stationka ahaa, iyo dhimasho hadda waxaan haynaa 2 qof inta la og yahay. waa dhici karaan dhaawaca dad ka mid ah inay dib ka geeriyoodaan, laakiin dhimashada hadda halkan laga qaaday waxay gaaraysaa 2 qof iyo 5 qof oo dhaawac ah. gaarigana sida ka muuqato wuxuu ahaa gaari baakin ku jiray oo halkan petrol stationka lagu xareeyay, bacdama aad ogtihiin ereyadan iyo goobaha meeshan wadooyinka soo galo dhan ay checkpointiyo ay ciidanku joogaan ay yihiin. maalin ka hor halkan bay ahayd meeshii lagu dilay nin shabaab ka tirsan. marka ciidanka runtii waxaan ku amaaneynaa feejignaanta dheeriga ah oo ay ka muuqato maalmihii la soo dhaafay. waxaan rajaynayaa inay sii laba jibaaraan. nimanka cadowga ah de qof dhimanaya cidna ma celin karto oo naftiisii raba inuu dilo oo caaway idinku intaad jiftaan guriga ku soo diyaarsanaya sidii uu isku dili lahaa, qofna ma celin karto. laakiin waxaan ku dadaalaynaa inuu qasaaruhu yaraado. waxaan ku dadaalaynaa in shacabka uusan qasaaro badan uusan gaarin. ilaahay idankiisna waa rajaynaynaa inuu qasaaruhu yaraado. aad iyo aad mar kale waxaan ugu mahadcelinaynaa laamaha amniga. waxaa ka kacay dab petrol station bacdama garan kartaa meeshu inay goob shidaal ahayd. ayadana waxaan waaxda gurmadka degdega gobolka Banaadir ku guuleystay in qasaaruhu uusan ku fidin dabka goobaha kale ee ku dhagan petrol stationka. intaas uu ku koobnaa qaraxii halkan ka dhacay. sida ka muuqatana wuxuu ahaa qarax goobo kale loo waday, laakiin halkan lagu qarinayay ama ay ayagu uga dhunteen laamaha amniga. gudoomiye waxaa la sheegay in gaariga uu marayay halkan isla markaana goobtan isku baakin kadib halkaas uu ku qaraxay. arrimahaas maxaa ka jira? gaariga ma socon markuu qarxayo, baakin uu ku jiray. gaariga ma socon, baakin uu ku jiray. waana baaritaana waxaa wadnaa qaabka uu halkan ku yimid iyo sida petrol stationka inuu ku baakinaa iyo in lagu diyaariyo laftirkeeda. intaba baaritaana ku wadnaa hadda. waana ogaan diiwaan ka ogaanana. maya dadka geeriyooday waa dadkii goobta ku jiray, ama ha noqdo ganacsade waa ogaanaynaa, ama ha noqdo dadkii meesha u yimid inay ka ganacsadaan wax ka qaataan. magaalada muqdisho caasimadda Soomaaliya iyo muddooyinkii waxaa ku soo badanayay qaraxyo iyo dilal qorshaysan, taas oo dowladda federaalka Soomaaliya ku noqotay mid ay ku dhaliilaan siyaasiyiinta ka soo horjeeda dowladda federaalka Soomaaliya. Sumeer Cabdirasaaq Umar, wararka telefishinka CNN magaalada caasimadda Muqdisho.